xirfadda gacanta waa xeelad iyo karti qaar ka mid ah bulshada muqla ku manaystay waana gallad iyo hibad u gaara aadmiga qaarkood umana baahna iskuul iyo jaamacad sanado badan qarash lagu bixiyo balse miskax furnaanta qofka iyo dadaalkiisa ayay ku xiran tahay Wama Women Group waa urur haweena oo sameeyay rinjiyeynta dharka samaynta agabka hidaha iyo dhaqanka harqaanka iyo waxyaabo badan oo noloshooda ku maareeyaan marka hore in aad biyihii aad wax ku kari lahayd dharkii markii uu bislaado wuxuu u baahan yahay dhaqid in la dhaqaalo rabaa biyihii marka hore waa inaad soo diyaarsatid dabkii markii aad sidatid aad biyaha asaartid biyahan kale aad wax ku sameeylayd horta waa inay ku diyaarsanaadaan Amina Maxamed Muuse waa gudoomiyaha ururkan oo saldhigoodu yahay xerada qaxootiga xagar dheer waxyaabaha aan qaban waxa kamid ah tie and dye oo aad arkaysaan macnaha dharka hadda miiska saaran waxaan kala sameeynaa weaving sida qaboojiyaasha darbooyinka waxyaabahaas ayaan sameeynaa groupka waxa la aasaasay 2008 wuxuuna ka kooban yahay 20 ruux xataa hadii hay'ad ay naga gadanin dhexdeena iska gadana oo dharkan qofkii baatiga ay tuuray dibadii loogu soo nooleynay waa dhaqaale macnaha meesha qofka uu haray qaabab kala duwan ayay u sameeyaan shaqooyinkooda waxa la karinayaa digsi ayaa dabka la saaraa biyo ku jira digsi markii dabka la saaro waxa hadda meesha aan ka tag waa koolada iyo cusbada kan waa cusbadan ma aha cusbada cuntada aan ku darsano waa cusbo kiimika kan yaalo rinjigan green ayaa la yiraahdaa nooc walba aad rinjiyada kala isku jira sida cagaarka buluuga jaalaha waxyaabahaas ayaa dharkaan lagu sameeyaa kan waa dameeri ama madow miro qafo waxay u taqaan inta waxa ku jira fiyoolo rinji la yiraahdo hay'adaha samafalka ayaa tababar iyo gacan ku siiyay bilowgii hawshooda balse xaaladdu hadda sidii hore ma ahan waxa nagu jira dad baahan aan kaar lahayn boona wax ku quuto ilmihii ay wateen u baahan waxbarasho tababarkii markii ay qaateen aan tababarnay nafta ahaantoodii hadda ulahan ay u qabtaan ilmihiina ay ka maareystaan marka faa'iido laba jibaarna meesha inay nooga jirto xagga ayaan dareensanahay groupka Wama Women Group NRC iyo wuxuu waxa ka helay macnaha maalgelin DRC waxayna siisay maxal dhijira qaaman 7 xabo ka kooban qaamankaas dubaati markii aan tolnayna suuqa ma soo tolno anaga gacmahayna ku tolno waxaan leenahay dad u tababar ayagana qaamanka noo tolo qaamankaas DRC na siisay jira waxa kale jira NRC oo 2 jeer na siisay rinji tiro badan iyo maxal dhijira baatiyaalba markii hore ee groupka la aasaasay ay joogtay hay'adda la yiraahdo care group walba wuxuu qabay qof horjoog ah sida hadda groupkan Wama kale aniga ayaa xil saarnaa rinji soo gaditaanka iyo waxyaabaha loo baahan yahay waxaana qabay warqad la yiraahdo telephone document oo groupka loogu soo adeego waxyaabaha uu u baahan yahay waxa uu sameeyay sida Nairobi iyo Mombasa iyo maxaa Gaarisa kale oo qaad jiray wixii xagga aga baahanna soo gadan jirnay wixii macnaha anaga aan sii gadayno waan geey jirnay sanooyinka aan dambe waxyaabahaas ama group macnaha horjooga leh oo macnaha soo adeega ma laha rinjiga markii xagga kiilada oo ka yahay rinjiyada kala duwan ee isku jiraan midka uu qaalisan kaamka wuxuu ka joogaa 4800 Mombasa markii laga soo gadanayna waa 2200 mid kale la yiraahdo reactive kaamka wuxuu ka joogaa 3200 Mombasa waa 1200 inkastoo ay ku faraxsan yihiin hawshooda haddana ma haystaan suuq iyo goobo ay u iibgeeyaan agabka ay soo saaraan darmooyinka kale waxaan qabi jirnay suuq la geeyo group walba dad loo qaado mar groupyada saddex qof la isku dari jiray oo wixii hal qof wakiil looga dhigi jiray oo wixii soo gadi jiray groupkan dib ugu soo celi jiray waxa taasna ma helna bariyahan dambe meel aan u suuq geeyna hatta maxaan ku lahaa jirnay dhadhaabo kale meel la geeyo oo loo qaado ama bishii 2 jeer ama hal mar oo kale aan tagi jirnay waxyaabahaasna dawiyada ma aragno darinta gogosha dhar naqshadaysan iyo agab kala duwan ayaa ii muuqday intaan goobta ku sugnaa waxayna leeyihiin santuuq dhaqaale ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan hawsha intaan bilaabin care wixii ay isiiso uma filneen in aan macnaha ilmo aan dhar iskool aaga gado in ilmo waxay u baahan yihiin aan ka siiyo in cunug macnaha ka soo daawo ay jirto haddana cunug wuxuu u baahan yahay
حتى نقول شيء جنة إلى قارع يوحول بالليه معناها بحي ما أودين لكن هذا وحالنا هاي جروب وأوجد صندوق إنه رياله وحنا يضط وحي معناها الساق الفائدة ساق شا قاب أيوت أجرت بشي لما جر لاسك قاضي لو هتروح أيوت أربستي وهدري ميسا أنت معناها ماشى كجرته يعني صدقان لنا صدق شيء ماشى اسكو جران صدق ما كلا دوان أيانا فريه هاي صاب حلقة في كلية من هاي صندوق أوجدين بشي لما جر أيا أرسنا سيدي هراء كان أقول بران فاشين لما جر لسوق أجر سنان لما اللي هذا أيام كو أرسنا dhaqan ahaan dumarka Soomaaliyeed kuwooda aan wax baran xaafadaha ay joogi jireen waxayna ku mashquulsanayeen daryeelka ubadka iyo hawsha guriga halka mas'uuliyadda reerka iyo daryeelka guud ay rag u xil saarnaayeen balse sanooyinkii badnaa ee burburka iyo kala hayaanka dumarka Soomaaliyeed waxay duruuftu biday in ay qabtaan wax kasto ay nolosha qoyskooda ku maareynayaan inta macnaha hadda wax fahansaneen waxaan ku codsanaynaa inay macnaha tababarka ay qaataan sifa ilmahooda ay u maareystaan maamada shaqaysato iyo macnaha maamada gurjooga ninka kaliya wax ka macnaha ka sugto ilmahooda hataa waxbarashada isku mid maaha isku niyadna maaha isku libisna maaha Maxamed Baaruud Xuseen wararkeestiin Dadaab